السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta iyo saacad kasta oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo nooga barateen toddobaadkiiba xilligan oo kale inaan mar idin ka soo gudbino TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada London. barnaamijka arrimaha bulshada daawadayaal sida la socotaanba bulshada Soomaaliland ayuu adeegaa wax kasta oo bulshada Soomaaliland wax ku soo kordhinayeen oo ku soo qaadanaa. Haddaba waa maxay mowduuca aan caawadin hayno? موضوعنا عاودين هاي نوع موضوع كدوان كوي هراء إذن كاني ترني أما أنكسو قادن ترني برنامجك لكن هو موضوع آد وقفة إذا له تدوينه رير Somaliland ملك استويتشوا عندنا نقطة دنك عافماتك عندنا نقطة دنك دقالة عندنا نقطة سيدي أي قيسك Somaliland أي مصر دتك في Somali وهذا لو دني بقى أولا ولا لنا هاي قيس نبض قبا أولاد عافمات قبتنا أي وقصوا بحلهاي وحويان موضوع عن داود الكسو قادن إنه برنامجك إنه شاتك أو سيدات أكتهم بقى ama qaadka qofba sidoo u yaqaano oo ah musiibo weyn oo bulshada ku habsatay oo dhawaan lagu dhawaaqay dawladda Ingiriiska ay ku dhawaaqday inay joojinayaan balse ay jiraan dad ka soo horjeeda joojinta qaadka waxa marti noogu ah Cabdirashiid Guuleed oo ah gudoomiyaha maan ee xaafadda Tower Hamlet ee magaalada London ahlan wa sahlan Cabdirashiid ku soo dhawow barnaamijka arrimaha bulshada Assalaamu calaykum Cabdirashiid marka hore waad ku mahadsan tahay sida wanaagsan ee barnaamijka nooga la qayb qaadanayso haddaan barnaamijkeena aan bilowno waxaad ku jirtaa ururka ka soo horjeeda ama urur u ololeynaya muddo dheer in jaadka la joojiyo dawladda Ingiriiskuna ugu dambeyntii way ku dhawaaqday in jaadka la joojinayo ama la hirgelinayo bisha koobaad ee sanadkan nagu soo socda muddadii aad hawsha wadeen maxaa idin suurtagalay maxaad is leedihiin waad ku faani kartaan oo waad qabateen horta walaal assalaamu calaykum dhammaan waxaan salaamayaa ummadda oo dhan reer Somaliland kabacdi walaalo arrintan qaadka waxaanu bilownay horta muddo ilaa 4 sanadood baanu wadnay waxyaalo fara badan baa nagu kalifay inaan arrintan galno kaligay maaha waxa arrintan ku dhex jira dad fara badan oo ah dadka Soomaaliga ku hadla reer Somaliland iyo dhamaan dadka Soomaali ku hadla dhamaan jaarkeena way ku jiraan marka ka bacdi walaal waxaanu aragnay dhibaato weyn buu qaadku inagu hayaa wadankan aynu joogno iyo dhulkiiba marka ka bacdi waxyaalahan aragnay waxa kamid ah in anigu horta waxaan ka shaqeeyaa mine haddaan ka shaqeeyo waxa weeye waxaanu la shaqeynaa dadka dhimirka ama magarata mental health ayaan ka shaqeeyaa in badan waan ka shaqeynayay marka waxaa igu kaliftay markaan arkay dhalinyaradii ama dadkii aan la shaqeynayay dhibaatadu ku hayo 300 oo qof oo xaafadayada ah matalan oo aanu la shaqeyno hadii boqolkiiba ay 80 qaadka cunayaan oo aad aragtid inaanu qofkii caafimaadkii uu dhibaato u keenayo waxaanu kaloo aragnay dhaqaalaha qoyska inuu dhibaato u keenayo waxaanu aragnay caruurteennii oo qaar iska dayacan yihiin waxaanu aragnay in qoysas burburay waxaanu aragnay dhibaatooyin kale oo ah in qaadku uu ka sabab yahay yani inaanay dadkeeni horumar fara badan aanay samayn dad fara badan oo waxyaalo fara badan oo maskax aad yaabaysid oo jaamiciya ama ah dad aad suranaysid wuxuu samayn karaya wax weyn buu u tari karaya bulshada oo qaadkaasi dib u dhigay la haray marka qolalahan qaadnay waxa kamid ah horta dhowrkii sanadood report la qora marka report la qoro waxa la yiraahdaa qolada la yiraahdo Advisory Council on Misuse of Drugs oo ACMD oo ah urur ka madax banaan dawladda Ingiriiska laakiin dawladdu ay dhageysato ama ma garanaysaa ay drugs goodan markay eegaan qaadka waxay yiraahdaan qaadku maaha drug khatar maaha way ogolyihiin inuu drug yahay laakiin khatar maaha marka drugyadu inta badan waxay ku sameeyaan classification ama waxay ku daraan kuwa hore ee hayaan oo matalan
waxaa ka mid ah cannabis ama xashada, waxaa ka mid ah cocaine-ta, heroin-ka, waxaas oo dhan. markaanu aragnay dhowr goor inaan saani loo eegayn ayaan waxaanu bilownay inaanu sii wadno, inaanu MPyada la hadalno, kuwa xaafadayada, kuwa xaafadaha kale, inaanu dowladda waraaq u dirno, inaanu ka qayb galno shirar fara badan oo meelahan dee ACMD-du isugu imanayso. kabacdi mudaharaad aanu samaynay, banaanbax. marka halkani lala soo gaadhay waxaa jirtay in gabadha wasiirka arrimaha gudaha ayaa tiri waan joojinayaa. markaa waanu soo dhaweynay, waanu la xidhiidhnay, iminkana waanu la shaqaynaynaa qolada xisbiga Labour-ka, iyaga laftigoodu arrinta way soo dhaweeyeen, qolada Liberal-ku way soo dhaweeyeen arrinta, ninka ka hooseeya ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Ingiriiska oo Nick Clegg la yidhaahdo wuu soo dhaweeyey arrintan. markaa qaadka waa la joojinaya, layskuma hayo. cabdirashiid, haddaan hadalkaaga daba galo, waxaad noo sheegtay hay-addan ACMD-du inaanay si saani ah u baadhin jaadka. maxaa sababa inay si saani ah u baadhi weydo ama ay dib ugu dhigayso? horta waxyaalo fara badan. waxa weeye qofka ku baadhaya ama eegaya waxa weeye horta marka horeba ma aha qof representative ah ama dee ama reer Somaliland ama dee dadka kale af Soomaaliga ku hadlaba aad u yaqaana ama bulshadeena aad u yaqaana. maaha waxa weeye inta badan waxaa arrimahan baadha dad jaamacadaha ama home office-ku ay consultants ah. inta badan waxay eegaan sample yar, ma sii baadhaan, ma sii fiiriyaan, ama gun ahaan kama gaadhaan dhibaatadu inagu hayo, ama ma garan karaanba dhibaatada laxaadka leh oo bulshada uu ku hayo, because iyagu mayna taabanin dhibkaas. muu taaban. waxa weeye waa qof intuu ku yimaado 2 week in and out, intuu ku yimaado dhowr qof la hadla, ka taga, wax qora, kabacdina yidhaahda dhibaato kuma hayo. markaa inta badanna dee qofkan waxaan samaynaya waxa weeye maaha qof, waa qof ajnabiya. markaa in badan baanu doonaynay in la sameeyo magarata research xoog weyn oo magarata tusaya dhibaatada uu ku hayo. weliba khusuusan dad fara badan baan ogeyn qaadka. anagu haddaan nahay la shaqayno aanu project qaada matalan aanu leenahay Tower Hamlets, waxaanu ogaanay qaadka caafimaadka maskaxda kaliya maaha. iminka matalan dad fara badan oo physical illness ama magaranaysaa odhanaya beerka laga haya. markaa waxaa jira waxyaalo fara badan oo baaritaan badan u baahan, laakiin inuu qaadku uu ka sabab yahay dad beer xanuunka oo kale matalan, taasi way jirtaa. waa la ogyahay qaadka sidii hore maaha, waxbaa lagu soo daraa siduu qaadku fertilizer ama magarata uu markiiba u baxo. lama saani looma soo maydho. waxyaalo fara badan, dhibaato fara badan oo qofku uu ka qaaday xanuun oo daroogadiisii ka sugo khatar kale keenaya ayuu baha ku leeyahay. bulshadii oo aan iska dareemayn waxaan lagu soo darayo ama aan ogeyn. markii aanu ogaanay in magarata pesticide oo kale lagu soo daro, weliba ma aha halkanoo keliya, waxa weeye ka waddanka la geeyo waa kadaalig. kan ka imanayo wadanada aynu jaarka nahay waxa weeye xanuuno fara badan ayuuba halkan la socdaa oo aan laysku ogeyn, oo loo baahan yahay magaranaysaa in aynu inagu haddaynu nahay Somaliland ahaan aynu eegno. waxa weeye haddii dhaqaalaha haddii magarata matalan waxaa lagu estimate karaya ama lagu qiyaasaa $100 ee la diro
haddii 80 waddanka ka baxayso waa dhibaato خسارة وخسارة وحوضن كي كم صهر أيام waxa weeye waxa lagu estimate garayaa millions lagu estimate garay billions baa lagu estimate garayaa أنت waxa تشاتك لو jirta يسبان inta chartka laga yaabaa haddii lacagtaasi ay waddanka gudihiisa joogto umayna baahnaan lahayn hay'ad ama cid kale waxaan u baahnaan lahayn dadka dibadda joogay lacagta u soo diraya waddanka ayuunu baahnaan lahayn oo waddankeena si aanaynu dhisan lahayn marka waxa weeye in haddaynu Somaliland nahay ama aynu nahay ummadda haddaynu dee nahay dadka u dhibaatada chatku u dhibaatada waa inaynu ogaano xagga maskaxda xagga jidhka xagga dhaqaalaha xagga bulshada kale waxaasoo dhan xagga waxbarashada waxaasoo dhan waa inaynu ogaano oo aynu wayna ina dabaqdo waxaan lacagtan inaga baxaysa waxyaalo fara badan oo waddanka gudihiisa ku qabsan lahayn صح دول العقد هذه كودي ليس ها أنا عبد الرشيد هتن حق عافماتك إتكلم واجسي دبعتين تلاقي بوجات كوكين كر عافماتك بني آدم والله wuxuu keeni karayaa anigu intaanu anagu aragnay waxa weeye dad fara badan oo xanuunsanaya waliba xanuunka maskaxda مثلا haddaad eegtid London oo kaliya waxa cusbitaalada aad iyo aad ugu badan haddaad proportion u aragtid dadka xaafadaha degan iyo dadka cusbitaalka ku jira مثلا meelaha la yiraahdo ama acute ama magarata intensive mental health ka wani ku fara badan haddaad مثلا ward 16 sariirooda aad ku aragtid afar Soomaaliya ku jira ama reer Somaliland ama Soomaalida kalaba aad ku aragtid dad waxa weeye wax ku damqayo weeye marka haddaad u eegtid dadka xaafadda degan inaguna dhowr ku nahay oo aynu afar sariirood qaadanay adiga ugu tirayar haddaad haddana tirad badan aad ka qaadatid waxa weeye waxay ku tusaysaa dhibaatada uu bahalku inagu hayo wax laga xumaado marka sababahaas aan u galnay inaanu ka hortagno ama anagu laftigii aanu ka soo noqono aanu ma garanaysaa dee qaadku dhibaato dadka ku haya waa inaanu wax ka qabano صح أنا عبد الرشيد سؤال أنا مركي هو كويتي بنكون نقنا ينكستو قيب كم ده يجي جوابتي محايدين قبصامي مددي أدودينا ينكو يري وحد يشكت إن حقيقة رمها جودات رسمي أو كلا أي إذا كبلن قاعدة أما يكون واقدين شات كلا تشوتيني مثلاً مدح كلا أضل حديدين أو يجونا أد شات كإن لو تشوتي صهر دكتين waxaanu soo hor dhignay anigu ku sheegay horta Nick Clegg Russia fil baa u tagay si wacan buu soo dhaweeyay waxaanu yiri magarata arigu arrintan soo dhaweynaya marka waxa jirta magarata dad ka soo horjeeday in qaadka la joojiyo markii aanu maqalay in ay soo arrintaasi jirto haddana olole kala qaadnay markaan olole kala qaadnay waxaanu sameynay waxaanu isticmaalnay wax la yiraahdo survey aanu eegayno bal waxaanu hor dhigno Theresa May iyo magarata madaxda kalaba waxa magarata waxa la isku dilay waxa weeye wax kasta waa inaad wax keentid markii aanu la xiriirnay bulshadii إلى Northern Ireland إلى Leicester إلى Bristol إلى Cardiff إلى ميل كستبا ولا سبوحية أما ورقة لقى سبوحية أما غير إيميل واحد دبعتنا نقص نقضي بقول كيبا سيدتن إن دتك الدنيا إن قاعد كلا صح وليبا سويبيجا waxa ku jiray rag iyo dumarba صح markaanu ka helay war ilaa Northern Ireland ilaa Scotland ay dadku leeyihiin laga joojiyo ayaanu hor dhignay Home Secretary صح أنا كنري واتها evidence كي أدو بحنايد يو community كا Somaliland Somalia يوم يلا كلا Somalia زود دكتور دتك Somalia كو هدلا بعد نوي كسور شيئا وحدوني لقى تشوشيو وحي أدو بحنايد evidence كي backing كي أما مقرأة support كي تاجر كي أدو بحنايد با هذا وكا كبعدين وحنو سميناي
report baanu qornay صح reportka waxa isaga yimi community fara badan oo project fara badan baa isaga yimi si dhaqsaha baanu qornay isaga reportka laftigiisa aanu ka hadlayno dhibaatadu ku hayo bulshada isagana Theresa May baan hor dhignay صح عبد الرشيد waxaa jira dad idin ka soo horjeeda oo diidan in jaadka la joojiyo kuwaas oo cududow ama quwado weyn ku tiirsan sida dawladda Kenya oo kale oo baarlamaankeeda u soo dirtay dalka Ingiriiska si ay uga hadlaan baarlamaanka Ingiriiska in jaadka la joojiyo waxaan oran karnaa kuwaas ganacsigooda ay u danaynayaan balse dawladda Ingiriiska iyo Kenya xiriir wanaagsan oo waqti dheer ah ayaa ka dhaxeeya sideed idinku u wajihi kartaan taa maadaama ay dacwadan socota in jaadka la joojin dadka raba ay wadaan ay dawladda Kenya si weyn u taageerayso horta waa dhowr siyood ma horta uga hortagi karnaa ama inuu eegi karnaa to ka horse waxa weeye waan ognahay shir bay la yeesheen home select committee qolada la yiraahdo markii ay hor fariisteen oo u tageen waxa ay xagga waxay ka galeen xagga businesska community-ga looma soo dirin ama laguma soo dhaween ama invitation looma dirin inay ka soo qayb galaan shirka marka waxay noqotay in aan dadkii arkay qolada delegation-ka ka timi iyo Soomaalida businesska ganacsatada magaranaysa businesska dadkii arkay inaanay danaynayn bulshada dadka af Soomaaliya ku hadla ee Britishka ah ee Britain degan صح waxa ay u arkeen xiriirka yani Kenya ma fahantay marka waxa weeye marka qoras weyn la ogaado hadaynu marnahay dad magaranaysa halkan degan waxaanu noqon waxyaalo fara badan baynu kala baxnaa Somaliland Soomaaliya marka dan waxaanu ku dambeynaa inuu nahay dad British صح marka waxaad ka soo galaysaa inaad tahay British oo Somaliland British Somaliland aad tahay ama British Soomaaliya tahay marka waxaanu ku doodnay oo uga hortagnay inaanu niri horta marka ugu horeysa waxaan nahay dad taxpayer waxaanu nahay dad wadankan degan waxaanu nahay dad ma garanaysaa intaas soo sanadood tax bixinayay waxaanu nahay dad ma garanaysaa voters oo wadanka xaq u leh kabacdina Ingiriisku waxay eegayaan oo kaliya ma aha xiriirka ka dhaxeeya Kenya iyo Ingiriiska waxay eegayaan xiriirka ka dhaxeeya Ingiriiska iyo Europe iyo Ingiriiska iyo America iyo Canada iyo wadamada kale marka Ingiriisku haduu noqdo hub ama meel uu qaadku ku soo ururo marka Europe oo dhan haduu ka mid yahay Europe oo part of Europe yahay marka iyaga interest-kooda ma Kenya yahay mise Europe tan dhan ee leh qaadku halkaas ku soo ururayo qaadiyamana ka joognaay naga joojiye ama America marka waxay qaateen tii Europe hadda qaadan waayeen anagu raadkanu qaadanayno waa taa Europe صح maxay ku dacwoonayaan dadkan doonaya inaan jaadka la joojin ma dad businesskooda u danaynaya oo inuu businesskooda ka istaagin doonaya mise waa dad qayli jiray oo marqaankooda u danaynaya horta kale way jiraan dad marqaankooda u danaynaya laakiin inta badan waxa weeye waa business صح businesskuna marmarba waxa jirta business magarata waxaan la yiraahdaa ethical ethical waxa weeye magaranaysa the business magaranaysa aan bulshadii ka soo horjeedin marka waxa weeye imika dadkaasi waxay sameyn karayaan wax kale ay isku dayi karaan waxay sameyn karayaan business kale furan karayaan marka waxa weeye in aynu ka eegno dhibaatada kale uu ku hayo magaranaysa bulshada marka anigu waxaan oran lahaa waa xagga ganacsiga ama xagga business bay ka eegayaan laakiin
waxa weeye xaggeenu ka eegno magaranaysa waa in guryo burburistan magaranaysaa dhibaatooyinka guryaha ku hayo dhibaatooyinka ku hayo magaranaysaa dadkana aan shaqaysanayn dhibaatooyinka ku hayo caafimaadka waxaasoo dhan iyagu waxa weeye iyagu dhinaca businesskooda ba ka eegayaan waxaa jira guddi hoosaad wasaaradda arrimaha gudaha ee ingiriisku ay leedahay kuwaasoo soo jeediyey inaan jaadka cunitaankiisa iyo ganacsigiisa midna aan la joojin si aan loo fuquuqin dadka jaadka cuna waxaa kaloo ay sheegeen in haddii la joojiyo jaadka cunistiisa iyo ka ganacsigiisaba ay ka hor imaan karto ololaha lagula jiro in argagixisada lagaga hortago maxay tahay xiriirka ka dhexeeya argagixisada iyo qaadka waxa weeye wax kastoo ma garanaysaa dhibaato inagu haya argagixisada loo leexiya wax allaalo wax ka dhexeeya ma jiraan waxa weeye jaadku ama ma garanaysa ganacsiga jaadku isagaba argagixisa waxa weeye in lagugu bajiyo ma garanaysaa wax kasta haddii saas dhacdo argagixisada badnaanaysa ama kana badnaanaya may waxa weeye wada interest gooniya wata interestkood waxa weeye horta inaanay Soomaalidu ama Somaliland ama dadka af Soomaaliya ku hadla aanay waxba qabsan taas waa mid jaadka wadanada jaarkeena ka imanaya waa wax ma garanaysaa GDP productivity-geena wadanka ka soo horjeeda saani uma function karayno ama saani uma shaqayno waxa weeye haddii aynu iska yarayno ama iska joojino waxa weeye waxaynu wax in ka badan baynu qabsan kari lahayn marka dantooda ayay ku jirtaa ingiriiskan joojiyey jaadkana waxaan anigu u malaynayaa ama u arkayaa inuu noqon karayo ma garanaysaa bilowgii aynu wadankeena aynu eegi lahayn aynu odhan lahayn faa'iidadiisuna waa maxay dhibaatadiisuna waa maxay tallaabada aynu ka qaban karnaana waa maxay waxa kale oo guddi hoosaadka wasaaradda arrimaha gudaha ay sheegeen in qaadka cunidiisa haddii la joojiyo ay dadkan qayila iyo ciidamada ammaanka ee dalka Britain ay iska hor imaan karaan qaadka ayaa xasilooni xumo keena maxay ugu tilmaameen haddii qaadka la joojiyo xasilooni xumo ayaa imanaysa horta wax kasta oo prohibition ama magarata la joojiyo markiiba la joojiyo waa in dowladii qaadato ma garanaysaa consultation ama magarata dadka waraysato community community wuxuu u baahan yahay in information fara badan advice in la siiyo oo lala shaqeeyo askarta laftigeedu waxay u baahan tahay in aynu la shaqeyno oo yacni magarata iyaguna ay nala shaqeeyaan oo aanay noqon magaranaysaa dee la eego sidii magaranaysaa si yaroo magaranaysaa transitional dadka looga sii dhaadhicin lahaa loo sheegi lahaa ama tviyada ha looga sheego ama magaranaysaa ha la qoro yacni magarata liiflato magaranaysaa community bulshooyinka meesha ku badan yihiin ha lagu faafiyo waxa weeye waxa loo sheegayaa sida hadday tahay magarata biliiska wadanka imika waanu consultation baa naga dhexeeya waanu la shaqeynaa waxaanu doonaynaa si aanay magaranaysaa aanay si waxaan la yidhahda heavy handed aan wax la sameynayo la taageed garaynayo magaranaysaa Soomaalida uma malaynayo inay jiri doonto jaadkan joojintiisuna waxa weeye 6 bilood ugu horeeyay baynu arkaynaa impact laakiin ka bacdi wala la qabsanaya marka la qabsadana waxa dhacaya dad fara badan oo ganacsiga inoo badnaanaya runtii isagana haddii runta la sheego xasilooni darrada ugu weyn jaadka keena maaha in lagu tilmaamo jaadka haddii la joojiyo xasilooni darra imanaysa inay halkaas si fiican ugu fiirsadaan ayaa wanaagsanaan lahayd
waxaa jirta garamayo inuu waqti u hayno barnaamijka 1993 anuu Cardiff jooga ayaa waxaa askari baa igu yidhi hadday Soomaalidu xeroonayso Jimcaha aanay dariiq streetka marmarayn intaasoo noo dana only Jimcaha may de waxa weeye yani qaadku maalintaas u iman jiray dadku waxa weeye hadday dadkani naga xoroonayaan marka waxa weeye inagu Soomaalidu maaha dad waa law abiding citizens oo dadka ka mid ah ganacsiga badnasan lahaayeen maqaaxiyoyn badin lahayn waxaan restaurantooda badin lahayn waxaan badan lahayn dukaanooyin baynu samaysan lahayn waxyaalo fara badan baynu samaysan lahayn magaalada haddii business yar oo fara badan dad fara badan baa shaqaysan lahaa dad fara badan baa jaamacada ka soo bixi lahaa dad fara badan baa ummadda Ingiriiska ayaynu dhex geli lahayn iminka Soomaalida waxa loo haystaa inuu nahay invisible community aan la arkin aan muuqan marka anigu waxaan isleeyahay 6 bilood buu impact noqonayaa ka bacdi dadkaas inuu wax la qabaynaa la qaybsanaynaa waxaan noqonaynaa dad wadanka ku nool oo la arkayo oo muuqanaya aan invisible ahayn Cabdirashiid waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo guddidan hoose ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain iyo xogayaha arrimaha gudaha oo Theresa May ah miyaanay wada shaqeynin sidee u soo kala saareen laba warbixinood oo kala duwan waxay weeye horta qoladan waxay eegaan drug policy labadii sanoodba marba eegaan mandarooyinka oo dhan bay soo qaadaan dabeetana way eegaan way baadhaan marka taas waa mid marka waxa weeye waxa warku ugu kala imanaya waxa weeye Theresa May waa dowladda oo yada ayaa kuna waa advice bay bixin karayaan marka waxay ka eegayaan waxa loo sheego iyada laakiin waxay ka eegaysaa waa dhowr meelood bay ka eegaysaa mid waxa weeye xagga international ko kale haddii matalan ay Europe ku tiraahdo bahaga jooji naga joojiye qaadka ama America ku tiraahdo ma garanaysaa dhibaato nagu haya idoo halkaas soo maraya naga joojiye waxa weeye waa inuu markaa Ingiriisku eego borderkiisa qaadku dhibaatada ku hayo marka sababta u joojinayana ugu weyn waa taa halkaas hadalka labada hadalka kala imanayaan waxa weeye advice-riga ay siinayso way ka soo horjeesan kartaa waxay odhan kartaa ma garanaysaa advice-ka aad siisan ama aad bixiseen maaha mid valid groupka kamida qaar kamida ayaa hadday noqoto xashida ama hadday noqoto drugska kale hadday heli kari lahaayeen legal ka dhigi lahaa marka inta badan waxay eegtaa advice-kooda inta ka qaadanayso way ka qaadataa inta kalena waxay tiraahdaa may macquul ay ka qaadataa wixii macquul ka qaadataa waxaa jirtay inay lagu dhawaaqay bisha koobaad ee sanadkan inagu soo socda oo wiiga soo socdaba ah waxaa la hirgelinayaa in jaadka si rasmi ah loo joojiyo laakiin dib in loo dhigay ayay u muuqataa maxaa keenay dib u dhaca waxyaalaha walaal sheegtay ayaa ka sababa waxa weeye waxa la doonayaa in waxyaalo fara badan la sii dhigo oo matalan ma garanaysaa adigu waxa sii diyaar garoobaya maaha askarto kaliya waxa weeye dadka in wax loo sii sheego waa in local authority-yadu xaafadaha ayaa responsibility looga dhigay oo lagu yidhi ma garanaysaa waa in aad xaafadiina dadka degan soo ogaada yaa degan imise Soomaaliya degan sidabaad ula xiriireysaan maxaad ku odhanaysaan wayna dadka wax u sii sheegtaan oo dabeetana waxa la sameynayaa maalintaas la joojiyay iyadoo wixii ma garanaysaa la hagaajin oo aan laga sii shaqayn oo aan la sii diyaar garayn marka way soo socotaa
lama garanayo isaga kuma oran karayo maalintaas la joojinaya laakiin waxa kaliya aan ka oran karayo waxa weeye tourism kama noqonayso decision-kay gaadhay laakiin sida ay haddii ma garanaysaa dadka ina dhegeysanay programka daawanaya iyadoo ay sidaa tahay waa inay weli biyadooda la hadlaan oo ku yidhaahdaan waad mahadsantihiin dhibaatadaas nagu haya sidaad noo sheegtay waxaad la shaqaysaa maalin oo ah ama aad guddoomiye u tahay dadka dhimirka ka xanuunsanaya ama dadka mental health-ga jaadkana sidaad noo sheegtay waa waxyaabaha ugu weyn ee dhaawaca soo gaarsiiya maskaxda bini'aadanka dad badan ayaa ku daawanaya oo ku sugan gudaha dalka Somaliland iyo dibadiisaba sidee dadkaasi aan ku sugnayn dalka UK laga mamnuucayo jaadka aad ugu sheegi kartaa inuu dhibaato adag ku yahay caafimaadkooda maskaxiyan iyo physically-ba waxa weeye horta waqti adag baynu soo marnay marka waqtiga adagi waxyaalo fara badan baa jira waxaan oran lahaa horta waa xaqiiqan waa la xaqiijiyay qaadku inuu yahay ever inkastoo in uu qaadku qofka dhibaataysan dhibaatada dibadda u soo saaro haddaad qaadka sii cuntidna xanuunka maskaxda uu sii kordhaya maca haddaad dawada qaadatid oo aad nasiib leedahay wadankii joogto oo dawo lagu siiyo dawadaas waxba kaama tarayso haddaad qaad cunaysid marka anigu waxaan oran lahaa ama aan advice siin lahaa waxa weeye horta qaadkani dhibaato fara badan buu inuu ku hayaa wadankii aniga waxay ugu dambeysay 2005 marmar iyo dhif baan aniga iyo group kale u dirnaa dawo cusbitaalada ka mid ah marka cusbitaalada dhimirka marka waxa weeye dhibaatada waan soo arkay 2005 markaan tagay waxa ila socotay psychiatrist waanu tagnay wadan magaalooyin fara badan baan visit gareyn training baanu ka bixinay marka dhibaatada ugu weyn ee aynu haysana waxa weeye horta waa qaadka haddii qaadka aynu wax ka qabano xanuunka maskaxda ama dhimirku u yaraan lahaa waayo dhe wadanku wuxuu soo maray trauma qof kastaaba iska dhibaataysan yahay waxaa ka jira shaqo la-aan waxaa ka jirta ma garanaysaa dagaal baynu soo marna waxyaalo aynu aragna marka wixii buu ka soo saarayaa uu dibadda soo dhigaya marka qofka hadduu qaadkaa isku badiyo dee dhibaatadu way nagu sii badnaanaysaa marka anigu waxaan odhan lahaa in sidii looga hortegi lahaa dowladdu uga hortegi lahayd in folowgeed la galo oo task force loo sameeyo maxaa idin qorshaysan ururkiina qaadka ka soo horjeeda inaad sameysaan waqtiga soo socda sanadka inagu soo socda haddaan idhaahnaba waxaan noo qorshaysan inaan horta inaanu la shaqeyno horta gobolada UK ka kooban inaanu magaranaysaa wixii advice aanu siino waxaa tagale in magaranaysaa bulshada ama projectyada ama magaranaysaa meelaha anigu waxaan odhan lahaa ay dadkeenu joogaan in aynu ogaano waxa weeye qaadka dadka qaarna waa iska kaashow bay u cunaan qaarna dhibaato ku haya kuwa ay dhibaatadu qaadku ku hayo in lasii ogaado in lasii maabgareeyo ama lasii ogaado oo loo diyaar gareeyo wax ay qaadkaa kaga jeestaan ama ma garanaysaa loo sii sheego imika waxaa noo diyaar garaysan waxa weeye laga yaabo qaar adiga sheegay ma garanaysaa haddii qaynuunku isbedelo oo loo cusub soo baxo inuu dadka ka dhaadhicino inuu dadka ka dhaadhicino waa maxay haddii ma garanaysaa qaadkaad cunaysid yacni haddii class C laga dhigo
adigu qofku hadduu ganacsiga ama businessya uu in badan haysto waxa weeye laga yaabaa in la xidho haddii magarasa uu in yar haysto waxa la siinaya warning marka hore kabacdina waa la khasirayaa saddexaadna wax lagu hadduu kalaasi yahay saddexaadna laga yaabaa in la xidho marka waxa weeye waxyaalahaas oo dhan inaynu ka dhaadhicino ayaanu diyaar garaynaynaa dadka u sheegaynaa waanu idin imanaynaa TV-ga qaranka kolleyba waxay nagu tahay khasab inaanu magarasa dee aanu weydiisano in aanu kusoo wacyigelin ka samaysaan dabcan waa idin siin doonaa waqtiga marka waxyaalo fara badan saasanu doonayna aanu samayno aanu ku tala jirnaa sax ugu dambeyntii Cabdirashiid dadka ku daawanaya reer Somaliland maxaad kula talinaysaa horta arrintan qaadka waxaan kula talin lahaa watiyan hore u sheegay waxa weeye wax faa'iido uu inoo keenay ama hadday noqoto bulshada individual ahaan ama hadday noqoto collective kulligeen waxa weeye wax dhibaato mooyaan wax faa'iido inoo keenay ma jirto waxaana ka mid ah magaranaysaa qaran baynu nahay waddan baynu nahay waddanka haddaynu doonayno in waddanku sii horumaro waa inaad eegtid waxyaalo fara badan ka eegtid lacagta kusoo gelaysa waxa kaa baxaya matalan aad eegtid productivity waxa weeye GDP-ga haddii magarasa aad eegtid inta dhaqaalaha waddanka gudihiisa inta lacag soo gelaysa waddanka gudihiisa ee dibadda ka imanaysa waxyaalo fara badan baynu ku qabsan lahayn dadku waxay ka odhanayaan haddii qaadkan lala joojiyo waxaan sameynaa waa bilaa shaqaane lacagta waddanka ka baxaysa ayaa shaqada keeni lahayd lacagta waddanka ka baxaysa taasaa shaqo abuuri lahayd marka aynu waqtigan aynu ka faa'iidaysano waqtiga yaan la luminin waqtiga laga faa'iidaysto qaadka hala yareeyo waxaan jeclaan lahaa qaadka la iska joojiyo waxaan jeclaan lahaa in aynu productivity-ga waddanka aynu kordhino in innovation aynu samayno in dadku ay isu tagaan oo ay ganacsi bilaabaan oo ay ka faa'iidaystaan lacagtan waddanka soo gelaysa waddan la mida ma jiro oo lacag dibadda lagaaga soo dirayo ma jiro marka intaa windowga yar aynu haysano aynu ka faa'iidaysano aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdirashiid mar kale daawadayaal waxaan filayaa barnaamijkan caawa in wax badan uu idin faa'iideeyay maadaama uu yahay qaadku musiibada ugu weyn ee bulshada ku habsatay marka dagaalka laga reebo dagaalkii waan ka soo gudubnay marxalad nabadeed ayaan hadda ku jirnaa wax walba dawlad baan helnay nabadgelyo ayaa wax walba lagu haystaa laakiin weli dhibaatada aan laga gudbin waa dhibaatada jaadka taan waxaan filayaa insha Allah inaan ka gudbi doono dhawaan barnaamijkeygii arrimaha bulshada wad ka daawanaysan TV-ga qaranka xaruntiisa magaalada London waa naga intaa aniga iyo martidayda sharafta leh iyo Jamaal Xasan oo qaybta farsamada noo fadhiyay waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh